السلام عليكم أصحابي سودو هذا إن شاء الله سيتيهين في عنتين الحمد لله إلى أنه نمعي ما أنتو حاسمي سنينا إن شاء الله روتي أو هيلب شيدن لقو درايو هيلب كان أركيسين وهيلب شيدن بييران قدر صدي إن شاء الله مركاد دبكا سارايا سوء سو كرسمو قعنتا كفر فري intuu noo karsamaayo waxaan sii diyaarsananaa khamiirka asii qasanayna khamiirkii waayo hal qaando khamiir ah aan halkaa ku daray iyo nus qaando cusbe ah iyo 3 qaando sokora insha Allah biyo xoogaa ayaa ku darsaday markaa waa isku qaqasay waa dhigaya xoogaa yar 10 daqiiqo camal markaa ka bacdi wax ku qasanaa burka iyo sidii aan ugu talagalay macnaha marka waa kana hilibkii 20 daqiiqo camal dabka saarnaa uu soo yar bislaaday ma sha Allah inta waxa ku darsanaa xabad ukun waxa ku darsanaya hilibkii iyo biyihii kulaa marka waa kaasa iyo 3 qaando saliid marka intaana isku qaqasaa burka ku darsanaya marka burka waxa ka bilaabaya 2 koob kan 2 koob u qaada iyo koob saddexaad oo asaga barkiisa ah marka insha Allah intaana marka hore qasaa koobka kalena gadaala kaga darsanaa macnaha marka hore inuu jileeca ka bilaaba xoogaa ugu darsanaa marka waa kana asxaabe waxa ku darsanaya xoogaa bur intaana isku rafaajinaa ma sha Allah rootigan qasmadiisa way fududahay ma aragtay meesha aan saliid aan kaga daray subag yar ku darsan kartaa soo nafaqo ugu noqdo ukunta 2 xabba aad ka dhigan kartaa sida rabta u duban kartaa ma sha Allah burkaas kiskis ugu darsanaya muhiimada ma aha burka qiyaastiisa laakiin sheeyasha kale oo lagu daraa inay aragtiin waaye burka qofka intii ku filan oo ka dhigan karaa ma aragtay intuu kaaga adkaanayo intii iga adkaanayo xoogaa ugu darsanaa insha Allah intuu cajiin caadi ka noqonayo rooti laga dubi karo asxaabi rootigan aad u fiican yahay in kaga faa'iideeyo insha Allah yalka ma aragtay aan cuntada abadeedka xun ama hilibka aan cunno kale ayaa la siin karaa marka hilibkii ugu dhex qarinay oo kala waaye iyo dadka waaweyn dadka hilibka aan jeclayn xataa haday cunaan kulay aad u macaan yahay bur hilib lagu dubay wax ka macaan ma lahan hilibka xataa inta ka badan waa ku darsan kartaan ani hadii hilib yaraan ku darsaday wax badan ma ahayn waayo ma rabo in ma aragtay ilmaha ay ka fahmaan marka ma sha Allah waa ka wada boolay insha Allah 40 daqiiqo meelahaas kadib aan u soo noqday hawl kala soo qabsaday 40 needa oo maleynaa iska badneen marka hadda waxaan sameynaa waa fidina birtii aan ugu talagalay in rootiga ku dubaa soo qaadana oo jileec noqday macnaha intii ma aragtay aan ka maqnaa sababta biyo kulaa lagu qasay ma ahan yaa waana la dabool oo sii huure marka in yar bur in lagu daramaana ma la fidin karo xoogaa bur ku daraas u yara adkaado asxaabi ani miiskan jeclaa in rooti ku fidsado ama aan ku xasho waa dhaqaa waa isticmaalaa ma aragtay weelka asaga iiga fudud kuskuskaas ka dhigaa asaga wax isla eg oo kuskus aan ka dhigayaa kadib waa kana birtiya soo saartay xaashi hadda xabada oo fidina birta saaraa gacanta xataa daarta ugu fidin kartaa oo jilicsan yahay laakiin xoogaa qoriga fiican si uu yara qurux badnaado macna wax isla leeg u yara noqonaa ay kan waa buuynaybo xoogaa u fidiyay burka aad u jilcan saasa keenayso
waa kana asaga dhanaan soo wada fidiyey. Marka hadda meeshaan ukunta jaalaha ah iyo in yaroo saliida ku qasay dushaa kama marinaa soo ma aragtay muuqaalkiisa u qurux badnaado. marka asxaabay xoogaa yar ovenka gelinaa ma ku daaraayo si xoogaa uu soo khamiiro 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo camal. markuu xoogaa kor usoo kaco kadib baa ku shidaaya insha Allah. saxankan bis ma ahan saxan kale iyo saxankan ka sameeyay insha Allah. la socod wanaagsan asxaabay, fadlan subscribe ii saara insha Allah. soo dhaweeya fiidiyogayga hadduu kusoo gaaro fadlan subscribe ii saar haddaad daawatid. aad iyo aad u mahadsantihiin. waa kana rootigiisaan uu noqday wuu jilicsan yahay maasha Allah.